hogaanka TPLF dagaalka kula jira dawladda Itoobiya ayaa shuruudo ku xidhay dawladda Itoobiya si xaaladda gobolka Tigray waa nabadeed looga galo. shuruudaha TPLF oo 7 ka kooban waxaa ka mid ah in dawladda ku meel gaarka ee deegaankaasi la kala diro in shuruud la'aan macaabis loo sii daayo. Haddaba warbixintani wariyahayaga Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo soo akhriyay ayaa goor dhaweed iga warramay. cabdiraxmaanow shuruudahan ay soo saareen waa shuruudo tiro badan. ta koowaad waxay sheegeen in ciidamada Eritrea laga saaro gobolka Tigray. hore labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea way beeniyeen ku lug lahaanshaha ee Eritrea ee colaadda Tigray. shuruudda labaad waxay sheegeen ka bixitaanka xoogagii kale ee soo duulay ciidamada Amxaarada ayaa sidoo kale ku dagaalamay gobolka waxayna gacanta ku hayaan meelaha qaar. shuruudda saddexaad waxay sheegeen baaritaan madax bannaan oo ku saabsan waxay ugu yeedheen isirsafayntii qowmiyadda iyo burburka uu sababay isku dhacani in la helo cid ka madax bannaan oo hawsha qiimayso wixii dhacay. qodobka kale ee ku xidhan shuruudaha waxaa ka mid ah helitaanka gobolka ee gargaarka bini'aadanimada si ugu yaraan loo gaadho 4.5 milyan oo qof oo si degdeg ugu baahan gargaar. sidoo kale waxay ku dareen shuruudda in si shuruud la'aan loo sii daayo maxaabiista siyaasadeed ee xidhan. iyo sidoo kale waxay sheegeen kala dirista maamulka ku meel gaarka ee Tigray loo dhisay kadib khilaafkii. shuruudda u dambeysana waxay sheegeen in wadahadallo kasta oo nabadeed ay hogaamiso hay'ad madax bannaan oo caalami ah. macnaha iskuma kalsoonin bay leeyihiin. waa gartay Cabdiraxmaanow, marka dawladda dhexe ee dalka Itoobiya maxay ka tiri marka shuruudahani TPLF ay ku xirtay? cabdiraxmaanow, xogtan horta waxaa baahisay warbaahin gaara oo taabacsan kooxdaas, laakiin weli Itoobiya si toos ogama ahada arrintan oo shuruudaha ma ay sheegin inay la qaadanayso hawshaas iyo meelaha ay ku diidan tahayba. cabdiraxmaanow, sidee shuruudahaasi looga falceliyay? cabdiraxmaan suweyn baa looga falceliyey. dadka wax falanqeeya gaar ahaan u dhuun daloolay arrimaha Itoobiya waxay sheegayaan in shuruudahaasi yihiin qaar kuwa la fulin karo, sida kuwa ay ka mid tahay in gargaarka bini'aadantinimo dadka la gaadhsiiyo oo kale, iyo ta ay ka mid tahay in la helo cid madax bannaan oo baadho wixii meesha ka dhacay, iyo ta ah wadahadallada in cid kale hogaamiso. waa kuwo waxay dhaheen laga soo bixi karo. laakiin shuruudaha adag ee ku jira marka loo eego abiy ku adag waxaa ka mid ah siideynta shuruud la'aan tahay maxaabiista siyaasadeed iyo kala dirista maamulkan loo sameeyey meeshii markii iyaga laga saaray. shuruudahaasi waa kuwa dabcan taagnaan doona ee sida ay isugu raaci doonaan haddiiba ay wax isku raacaan ay adkaan doonto. waayo cabdiraxmaanow, ugu dambayn sidaan la soconno bilooyin ayay deegaanka Tigray dagaalo ka socdeen ku dhex marayeen dawladda dhexe Itoobiya iyo xoogaga TPLF. marka xaaladda deegaankaasi haatani waa sidee? cabdiraxmaan, xaalka deegaanku uu degan yahay. dhowaan bay ahayd markii ra'iisul wasaare abiy uu la kulmayey madaxda iyo maamulkii cusba ee uu sameeyey. toddobaadkan horraantiisii mas-uuliyiinta cusub ee Tigraygu waxay dadka ugu digeen inay gabaad siiyaan cid kastoo isku dayeysa inay xasilooni darro ka dhacdo gobolka. waxay sheegeen ciddii isku dayda inay soo dhoweyso cid nabadda fadqalalo ku ah inay eedi doonaan. dhowr hogaamiye oo TPLF oo howlgaba ayaa la dilay ama la qabtay muddadii dagaalkan socday, laakiin hogaamiyaashii firfircoonaa xisbiga iyo hogaamiyaashii militariga ahaa weli way dagaalamayaan oo waxay ku jiraan duurka. cabdiraxmaan, oo dhanka kalena inkastoo dawladdu sheegtay in khilaafkani dhammaaday kadib markii la qabtay caasimadii gobolka ee Maqalla dhammaadkii bishii Noofembar, waxaa weli muuqataa in aan dagaalkaasi dhammaan oo xaalku weli sii socdo. kooxa ka mid a hogaamiyaashii TPLFna ay weli joogaan oo awooddoodu ay muuqato. waxay ahayd bishii Noofembar 2020 markay ciidamada federaalku bilaabeen gulufkii ay ku saareen kooxda TPLF kadib markii ay dagaalyahanadoodu qabsadeen meelihii ugu badnaa ee gobolkaasiba caasimadda. Cabdiraxmaan Cali Dhimbil aad buu u mahadsan